kusoo dhawaada wararkii u dambeeyay dalka Itoobiya iyo dagaaladii xoogganaa ee dalkaasi ka soconayay maalmahana wararkii u dambeeyay ee aanu ka helayno dagaalada ka socda dalka Itoobiyana waxaa ka mid ah maamulka gobolka Tigray oo shaaciyay in ay soo rideen 2 diyaaradood iyo faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ku saabsan iyada oo maanta saxaafadda caalamku ay si aad u buunbuuninaysa diyaaradahaas madaxweynaha gobolka Tigray Dr. Debretsion isaga oo la hadlayay Reuters ayaa waxa uu sheegay in wada hadal ay diyaar u yihiin haddii la helo dad ay la hadlaan boobka ugu weyn dunida oo dhan diinta kiristaanka oo u dhashay dalka Talyaanigana waxa uu baaq u soo diray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo uu doonayo in dagaalka lagu joojiyo ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmedna waxa uu isku shaandhayn la yaab leh ku sameeyay golihiisa wasiirada arrintaasi oo shaki badan dhalisay isaga oo dad badan xilka ka tuuray kuwa hor lana magacaabaya aan ku bilownay sida aad wararkeennii hore kula socoteen dagaalada xooggan ee ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa ay galeen maalintii shanaad ee ay isdirirayaan ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee maamulka gobolka Tigray ee loo yaqaano Liyu Police dagaalka oo galay maalintii shanaad ayaa waxaa la sheegay in labada dhinac ay si weyn isugu horteen iyada oo maanta taliyaha cusub ee loo magacaabay militariga dalkaas Burhanu Jula oo horay u ahaa taliye ku-xigeenka uu sheegay in 4 deegaan ay kala wareegeen ciidamada maamulka Tigray ayaa haddana waxaa la xaqiijiyay inaysan jirin wax guul rasmi ah oo ay gaareen ciidamada militariga ee dagaaladu ay sidoodii u sii socdaan isla markaasina labada ciidan ay sar fadhiyaan taliyaha ciidamada militariga Itoobiya Burhanu Jula ayaa waxa uu maanta sheegay in ciidamada militariga Itoobiya oo ay kaabayaan ciidamada maamul goboleedyada Liyu Police oo ay ka mid yihiin ciidamada Liyu Police Oromada Soomaalida iyo Canfarta in maanta ay dhowr goobood ka qabsadeen ciidamada maamulka gobolka Tigray balse arrintaasi ilaa iyo hadda xaqiiqo rasmi ah looma hayo inkasta oo dadka qaar ay sheegayaan in maanta dagaalka ugu cusbaa labada dhinac u dhex maraya kaasi oo la sheegay in dib loogu riixay ciidamada maamulka gobolka Tigray si kastaba haatee dagaalka oo aad u cuslaa ayaa haddana waxaa la sheegayaa in labada dhinac aysan guul rasmi ah kala gaadhin dhanka kale maamulka gobolka Tigray oo galabta saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay guul ka gaadheen dagaalada xooggan ee u dhexeeya iyaga iyo ciidamada uu soo diray Abiy Ahmed afayeenka xisbiga TPLF Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay si weyn u baaciyeen isla markaasina dib looga bixiyay ciidamada militariga iyo kuwa kaabaya dhufaysadii ay ku jireen Getachew Reda oo si hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay soo rideen intii dagaaladu ay socdeen 2 diyaaradood diyaaradahaasi oo uu sheegay in mid ka mid ah in isla maanta oo ay taariikhdu ahayd 8 bisha 11 2020 ay ku soo rideen meel sidaasi uga fogeyn magaalada Maqale ee caasimadda maamulkaasi Getachew Reda oo saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu xaqiijiyay in diyaarad dagaal ay soo rideen diyaaradani ayaa waxa uu sheegay in ay ku soo rideen meel aad ugu dhow magaalada Maqale ee caasimadda maamulkaas waxa kale oo uu sheegay in dagaaladu ay socdeen in ay diyaarad kale soo rideen Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in ay haystaan gantaalada lidka diyaaradaha isla markaasina aysan jirin diyaarad wax ka qaadi karta ama duqeyn karta magaalada Maqale iyo deegaanada kale ee maamulka gobolka Tigray waxa uu sheegay in labadaasi diyaaradood isla markiiba ay soo rideen sidoo kalena diyaarado kale oo isku dayay inay duqeeyaan isla markiiba inay carareen annagu waxaanu haysanaa lidka diyaaradaha sidoo kale waxaanu haysanaa diyaaradaha wax duqeeya balse ma suurtagelayso inay nala duqeeyo wax kasta oo ay sameeyaan ayuu sheegay Getachew Reda oo ka mid ah guddiga fulinta ee xisbiga TPLF sidoo kalena afayeen u ah xisbigaasi dagaalka xooggan uu kula jiro Abiy Ahmed dhanka kale saxaafadda caalamka ayaa maanta aad waxa ay ugaada dhigaysay diyaaradaasi ay soo rideen maamulka gobolka Tigray saxaafadaha waaweyn ee caalamka ayaa waxa ay maanta sheegayeen in maamulka Tigray ay ku soo rideen magaalada Maqale meel aad ugu dhow diyaarad dagaaltaasi oo isku dayday inay duqeyn ka geysato goobahaasi soo ridida diyaaradani ayaa waxa ay ku soo hagaagaysaa xilli ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed uu sheegay inay duqeeyeen gabi ahaanba hubkii waaweynaa ee ay haysteen maamulka gobolka Tigray isla markaasina ay burburiyeen Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay shalayto in duqeyn ay ku burburiyeen hubkii waaweynaa ee ay haysteen kaasi oo uu sheegay inay ka boobeen ciidamada militariga Itoobiya ee ku sugnaa qaybta waqooyi ee gobolka Tigray Abiy Ahmed ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in gantaal la dheereeyo oo qaar ka mid ah ay soconayaan 300 kiiloomitir ay jireen kuwaasi oo gacanta u galay maamulka Tigray balse waxa uu intaasi raaciyay inay xog ka heleen meesha ay yaalaan gantaaladaasi kadibna ay halkaasi ku burburiyeen
si kastaba haatee diyaaradani ayaa waxaa loo badinayaa inay maanta ay soo rideen maamulka gobolka Tigray marka laga tago sheegashadooda waxaa jira saxaafada iyo dad kale oo siyaasadda si weyn ugu lug leh kuwaasi oo muujinaya in diyaaraddaasi si rasmi ah loo soo riday dhanka kale madaxweynaha maamulka gobolka Tigray Dr. Debretsion oo maanta la hadlay Reuters ayaa isaguna waxa uu sheegay in wada hadal ay diyaar u yihiin haddii la arko cid ay la hadli karaan madaxweynaha gobolka Tigray Debretsion oo galabta la hadlay Reuters ayaa waxa uu sheegay inay wanaagsaneyd in la wada hadlo oo dagaalka la joojiyo isaga oo sheegay ka maamul ahaan iyagu inaysan wada hadalka saxda ah diidanayn sida uu hadalka u dhigay waxa uu ku eedeeyay dawladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed in iyadu weerar iyo xoog ay bilowday isla markaasina sidii Abiy Ahmed uu meesha u imaaday uu noqday ninka kan oo doonaya in uu dagaal wax walba ku fuliyo balse iyagu marnaba aysan diidin in la wada hadlo haddana ay wada hadalkaasi diyaar u yihiin Debretsion ayaa waxaa kale oo intaasi uu ku sii daray in maamulkiisa aysan geysanin wax dhibaato ah oo iyagu ay ku jiraan isdifaacida weerar ayaana lagaga soo qaaday Itoobiya oo dhan gobol walba meeshan weerar ayuu ku yahay waxaanuna u taaganahay inaanu isdifaacno balse ma jirto inaanu anagu u xaydxaydanay inaanu Itoobiya oo dhan la dagaalano inkasta oo sidaasi ay wax u dhaceen haddana waxaanu diyaar u nahay wada hadal haddii ayaga dhab ka tahay oo si rasmi ah ay u doonayaan in wada hadal lagu dhameeyo waxaa kale duulaanka iyo gardaradana lagu soo qaaday marna isma dhiibayno inta uu qofka u dambeeya dhimanayo waanu dagaalamaynaa waxaanu haysanaa hub nagu filan iyo ciidan nagu filan kuwaas oo dhabanada ku dhuftay ciidamada militariga Itoobiya iyo huwantii ay kaashanayeen waana kuwa aanu ku qaadanayno inuu diyaarka u nahay inaanu sii xoojino ayuu sheegay Debretsion oo la hadlayay Reuters degdegale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isagu waxa uu maanta sameeyay isku shaandhayn aad u ballaaran oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada isaga oo dad kale oo golaha wasiirada ka baxsan xilal u magacaabay qaarna xilalkii ka qaaday taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxaa loo magacaabay General Burhanu Jula oo horey u ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada militariga kana soo jeeda qowmiyadda Oromada ninkani ayaa waxaa la sheegay inay si weyn isugu dhadhow yihiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waana sababta keentay in xilkaasi uu u magacaabo sida ay wararka sheegayaan Abiy Ahmed ayaa sidoo kale dadka uu xilalka ka qaaday ee haddana uu xil kale u magacaabay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkii dalkaas oo ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada ninkaas ayaa waxa uu u magacaabay xilligani wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ninkaasi oo dhawaanto hadal laga yaabay baraha bulshada ku faafiyay ayaa la filayay in Abiy Ahmed uu xilka ka qaado balse lama sugaynin inuu xil kale u magacaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dhamake Mukanan ayaa dhawaanto baraha bulshada waxa uu ku qoray hadal lala fajacay oo ahaa in qowmiyadda Axmaarada ee uu ka soo jeedo la hubeeyo isla markaasina ay la dagaalanto qowmiyadaha kale ee dalkaasi ee ay xiniftu kala dhaxayso isaga oo si toos ah bartiisa Twitterka iyo Facebookaba ugu qoray arrintaasi wuxuu sheegay in qowmiyadda Axmaaradu ay hub gataan isla markaasina dawladuna ay ka qayb qaadanayso hubgadistooda ayna la dagaalamayso qowmiyadaha kale ee ka soo horjeeda arrintaasi oo si weyn looga yaabay in nin heerkaasi ka gaarsiisan madaxda dalka inuu sidaasi u soo koro isaga oo beeshiisa ku gubaabinayo inay dagaal gasho isla markaasina ku sii daraya in dawladda hantida ay leedahay hub loogu gadayo qowmiyadda Axmaarada ninkaasi oo ku-xigeen u ahaa Abiy Ahmed ayaa maanta waxa uu u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sidoo kale madaxweynihii qowmiyadda Axmaarada oo isaguna maanta iscasilay ayaa waxaa loo magacaabay taliyaha sirdoonka ee dalkaas ma jirto ilaa iyo hadda intaanu ognahay wax Soomaaliya oo xil laga qaaday ama xil